dambiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho anug oo marka dambe dhiman doono oo budbooda la dhahay doono amesh taaganayo asad telefoon intuu qabto wuxuu dhahay waraan imanka wada carreen gabigooda wallahi fulay waay shabaabti iyo wixii iyo kan budbooda wax muusan hubsan ninka ku bilaabay abaan marka xabad anaga soo wada orad meesha ka imaanay ninkii jiifa aragnay ninkan bas wala xariisana bas ninkan soo wadnay waxa dhacay saan u dhahay ninka u dhahay telefoon soo ku hadlay telefoonkiisa waa kaasa anoo meesha taagan u dhahay nimanka soo galeen wuxuu gudbinay asad markaas uu noolaa ana waa arkay ana baralaayso uu noolaa yani meed ahaan uu soo tagay laakiin markaas uu noolaa dambiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ninkaas isagoo kadib ka dad badan dilay ay dawladda Soomaaliya oo u soo gacan galay qabatay waa la toogtay oo tiirka cadaaladda la geeyay maxaa dareentay markii dawladda Soomaaliya ay ninkii ku naafiyay tiirka ku xirtay horta yani markii la ogaaday yani afaaraas oo kale ma ahayn qof yani seexda يعني مدة وحن كفكر جري محو صوبتان سنان وسمي وحيا فاسيو كل أصيغ ما أهن قفك يعني وحاسمي لكن حق أيوكو شن سنة لحسن أكسوريغتي مدة أكسوريغتي ستيل مركز وحن كفكر جري محاسمي سي أو محاها سي أو سيدان دان لغو سمي ودنبانتيني يعني حقتاس ولا شيء بحيك الدنبيدان يعني وحاها قف waanu hurda ka soo dhicin oo maanta dhan xaaladda markaas taagna oo kale ama magaaladiis ku sugnaa soo dhibaata iga maaday markuu sheegay ninkaas in ama xubintaas wax u geeyay dabcan wuxuu ku jiray raggii weerar ku geystay xubnihii kale ee xogtooda ma heshay iyo dadkii ahaayeen wallahi may waxaan ma raadinin waan ka socda labis laakiin ugu dambeyntii dawladda qabatay waxaas yar uu ka sheegay wax ka fahmay bis ma ahane qof toos ay war xaqiiqa ah ilaa hadda ma hayo laakiin boqolkiiba boqol sababaha iyo waxyaabahaas oo dhan qaarkood wax asuu ka sheegay way dhici karaan qaarkood ma dhici karaan inkastoo iska ah qof caadi oo arkaysa marka in laga oofiyo dambiyadii oo gali jiray ninkaasi oo dad badan oo ku dhibaatay adigu ku jirta wallahi كلية مؤهد لاي دمان قفل بدبات لو جي أو حقيس لو سوء جي أيان كهلا عادي وكفر حي يعني إن حقيقي لسوء علي أو كلا ما بقف ما أنت حق أكه شيء أو تيرك عدالة لجينا أو كلا أما محكمة عدالة لجينا وحياس كل فرحة يو تصال وحيوتها يعني برشة الصوماليات أو قفل بدبلاي كلا أو حقيس لو دعنا أو كلا مركا wax oo dareen goon ah meegal lahayn ilaa iyo markuu sheegay maahan in la dilay in la maxkamadeeyay waxyaabahaas oo dhan yani wax weyn ama macno weyn ma ila lahayn waxa igla weyneed inaan ogaado sababta oo ka dambeysay wax saas lagu sameeyo kale ama in wax yar xitaa aan ogaado taas ay igla weyneed okay